Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa si diiran garoonka diyaaradaha ee Ogaasnuur ugu soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid, gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Mudane Maxamed Nuur Gacal iyo qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada Galmudug. Madaxweynaha Galmudug ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, halkaasi oo uu uga qayb galay shirar u dhexeeya madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Madaxweynaha ayaa waayihii u dambeeyay wada dadaalo xal looga raadinayo muranka arrimaha doorashooyinka qaran ee ka aloosan gudaha dalka. Dastuurka dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhigayay in 45 cisho ka badan uusan madaxweynuhu ka maqnaan karin deegaanada Galmudug, taasi oo keentay in maanta si degdeg ah uu safar ugu ambabaxa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Qoorqoor ayaa maanta fursad u helay in uu ka nasto heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii tagay, kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay buuqiisa uu ka taagnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in safarka madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor u yimi kadib markii xildhibaanada qaar ay ku dhaliileen in uu caasimadda ka maqan yahay muddo ka badan waqtiga dastuurka uu calaamadeeyay, taasi oo keentay in markii uu garoonka diyaaradaha ee Ogaasnuur ka dega maanta ay halkaasi ka hadlaan qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, iyagoona soo dhaweeyay maatanka madaxweynaha Galmudug uu maanta tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. si sharaf leh maanta halkan loogu soo dhaweeyay madaxweynihii Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo dib ugu soo noqday caasimaddii. runaantii si diiran oo xamaasad leh ayaa waxaa u soo dhaweeyay golihii shacabka Galmudug, hadday ahaadeen golihii wasiirada, dadweyne fara badan. intaba madaxweynaha maanta waxay ku soo dhaweeyeen garoonka Dhuusamareeb oo dib daraad ugu soo noqday magaalo madaxdiisii. runaantii aad iyo aad baa loo malaysanayay maatankiisa. madaxweynuhu waa madaxweyne sharci ilaaliye ah, taas baana markhaati ka ah maanta inuu dib ugu soo noqdo deegaankiisii, asagoo la ogyahay howlo ballaaran oo xasaasi ah oo heer qaran inay dalka ka soo noqdaan ay ka socdaan. haddana madaxweynuhu xil ballaaran wuxuu iska saaray dastuurkii Galmudug ee dhigaya 45 casho gudahooda inuusan madaxweynuhu ka maqnaan karin. annagoo hubna shaqo aan u idmanay inuu dalka iyo dadka u hayo, haddana madaxweynaha dastuurka uu maamuusay, waana ku madaasan yahay, waana madaxweyne dastuuriya. Cabdi Jaliil Cusmaan, Samsom, TR TV, Ankara.